shir maalmihii ugu dambeeyay qabqabadiisa ay soo socotay waxaan jeclahay Muxyidiin Darbaweyne oo kamid ah xubnaha guddiga qabanqaabada shirka kamid ah beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan beelweynta Mudulood maanta uga furmay magaalada Muqdisho ku soo dhaw telefishinka Universal bal markuu ugu horeysa waxaad faahfaahin kooban naga siisaa muddadii uu socday qabanqaabada shirka maanta daafurkiisa ama maalintiisii koobaad ay ka qabsoomaysa magaalada Muqdisho maalmaha uu soconayo iyo ujeedada aad u qabanaysaan shirkan sidiisaba wuxuu ahay shir ka dhashay culeyska badan beeshaan weyninka badan ee aad ogtahay ilaahay ku maneestay xoogga iyo quwadda isla markaasna canshuur bixiyayaasha maalin kasta shirarka ka dhacaya gobollada iyo waddanka dibaddiisa inay ka maqnaadaan waa wax xaaraan oon marnaba loo adkaysan karin waxyaabaha ay ka dhiidhiyeenna waxaa ugu weynaay in dadka shiraayana ay yihiin kuwaan annaga canshuurta siinaynay isla markaas haddana aanan shirkiba annaga ku jirin haddii guddoomiyihii gobolka banaadir ou tagana la leeyahay ma doornid adiga ee iska bax waxyaabahaasaan ugu kallifay inaan shirkaan qabanno maaragtay keenayna inay beelweyntan ka shirto ayagoo aanan guddo ama hoggaan dambe aanan haysaninna inaanan shir dawlad goboleed uusan ka dhicin dalka gudihiisa hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo doorashada soo socota oo la leeyahay nin walba maaragtay waa inuu gobolkiisa aadaa sababtaan u dhahaynana wax kale ma aha inta gobolka banaadir laga dhisaayo oo gobolka banaadir uu ka yeelanayo dawlad goboleedkiisa oo gobolka banaadir inaanan cidna maaragtay halkaan lagu dooro karin yaa oo aayahooday uga tashadaan aa la rabaa in xubnaha muhiimka ah ee aad ku martiqaadeen shirkan ee maanta ka furmaya magaalada Muqdisho iyo muddada uu soconayo mana la wadaagi kartaa waa kula wadaagi karaa xubnaha horta fahmt waa Mudulood kaliya oon cidna kale aysan la jirin laakiin maaritaanka dina shirweynihii wixii ka soo baxay ayaa la isla afgarana berri dambe oo Arbaco ah ayaa waxaan ku martiqaadnay beelaha Soomaaliyeed ee nala degan gobolka banaadir xoogooda lagu martiqaaday inay ka soo qayb galaan laakiin ujeedada u weyn waxa waaye dadkan basiirkooda ay u madax bannaan yihiin inay dhistaan maalmihii ugu dambeeyay waxaad ku jirteen qabanqaabada shirkan maanta ayay suura gashay inkastoo dhowr jeer uu baaqday haddana maxaad u sheegaysaa bulshada aan fursadda u helin inay halkaa yimaadaan telefishinka Universal ka daawanaya natiijooyinka la filayo in ay ka soo baxaan shirkan bulshada waxaan u sheegaynaa horta ha ku farxaano in gobolkii banaadir la dhisaayo oo aan maaragtay cidna laga baryaynin laba aqalaa dhisayda iyo laba aqalaa saasa waa naga hirtay waxayna ku hirtay wax kale ma ahane baarlamaanka asagaaba sii dhimanayo waa dhammaaday wakhtigiisa maxaa jira bisha December waa ku egyahay baarlamaanka ha ku ekaadee baarlamaanka markuu dhammaado muddadiisa December waxaa la rabaa beeshaan inay soo saarto gobolkii banaadir oo state leh statekaas ayaana hoggaami doona stateyada kale wuxuu ku hoggaaminayana waa og tahay wax kale maahane haddaba annagaa masruufna marka waxaan nahay canshuur bixiyayaal ee aan haddana representation lahayn oo aan qof mas-uul u aysan jirin marka waxay yeelanayaan bisha December intaysan dhammaanin canshuur bixiyayaal oo waxay noqonayaan kuway canshuurta siiyaanna hoggaan u noqda Soomaaliya oo dhan hoggaan u noqda maxaa jira hooyadii aan nahay Puntland waxay tiraa hooyada federaalka nahay waa runteed laakiin annagana waxaan nahay aabihii dhalay macal Puntland ee ku bixinayay dhaqaalaha ku bixinayay markii hooyada markay guriga fadhiday jikada karinayso aabba masruufkeena soo lama rabo aabbi wax masruufayaana aabba wax masruufayana sidiisaba lagama boodi karo waxaa la rabaa inuu yiraaho war haye ilmahayga maxaa idin deeqa hadda xoogaa yar oo dawladda ay u qoondaysa kaliya ay qaataan ma ogtahay markii laakiin dawlad goboleedka sax ah yimaado wax fiican ay ayagana heli doonaan waa la wada xisaabtami doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waa hagaag daawadayaal wuxuu ahaa Muxyidiin Darbaweyne oo kamid ah xubnaha guddiga qabanqaabada